Jubbaland ayaa lagu dilay deegaanka Raas Kamboni ciidamo taabacsan Axmed Madoobe oo daacad u ah ayaa dilay laba sargaal oo deegaanka Raas Kamboni ka soo jeeda oo ciidankana ka tirsanaa. Axmed Madoobe ayay ka hor imaadeen baa la yidhi ajandayaashiisa iyo qorshayaashiisa niman mucaaradka u jarjaray hay'ad baa la leeyahay bal iyadana saraakiisha la laayay waan soo qaadan doonaa. dhinaca iyo luuq haddii aynu eegnana dagaal beeleedyo ayaa ka dhacay laba beelood oo deegaankaasi wada degan dagaaladooduna ay soo noqdeen sanadkii ugu dambeeyay ayaa halkaasi ku dagaalamay gaar ahaan weliba inta u dhaxaysa degmada Luqanaane iyo deegaanka Yurkud oo markaasi ka tirsan luuq. labada beelood ee halka ku dagaalantay iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyay iyadana waan soo qaadan doonaa hadduu alla idmo. soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saaro aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay horta wakiilada Axmed Madoobe u qaabilsan gobolka Gado ayay ahaayeen qaybta hore muuqaalka. qaybtii ugu horeysay muuqaalka waa wakiilkii magaalada Beled Xaawo ugu xil saarnaa Axmed Madoobe. ilaa Axmed Madoobe nidaam dawlad ahaan kuma shaqeeyo waxa uu jooga meelaha waa wakiil iyo amiiro weeye amiiro u jooga marka waa amirkii magaalada Beled Xaawo u joogay Axmed Madoobe weeye ninka hadlaya. waa ninkii magaalada laga saaray, waa ninkii ummadda dhibaateeyay, waa ninkii xabadda bilaabay, waa ninkii ciidanka dawladda iyo helicoptertii dawladda oo ka soo degaysa duleedka magaalada xabadda ku bilaabay dhash kadibna maxankii waxa weeye raggii uu xabadda ku bilaabay ay isqabteen cararay ee waxa weeye kabihiisa kala baxay magaalada. ninka hadlaya wuxuu leeyahay duleedka magaalada horta ku sugan yihiin iyagoo fara badan oo Axmed Madoobe daacad ah oo wakiilo uu soo diray uu yiri gobolka Gado aada oo waxa weeye deegaankii aad matalaysan waa deegaankaas ka qabsada ciidanka dawladda iyo dadka haysta ka qabsada ayay horta Beled Xaawo tusheeda ku sugan yihiin. warbaahinta uu yeedhaano waa la iska fadhiistaa digeeda hoostood la fadhiistay Maxamuud Sayidoo marmaroosan oo moodid inuu saxaraha muddo 2 sano ku xidhnaa oo naftu ay ku dabayartahay inuu wada arkayseen inuu meelaha uu waxa weeye taagnaayo shirka uu ku jiray. waxay leeyihiin dawladda dagaal soo qaaday hoobiyaal baa lagu soo daadguray sidana nala yeelay war ilaahay baa inuu dhaariyay dagaalka yaa qaaday war dagaalkan soo ciidankii dawladda federaalkeed la weeraray bartamaha magaalada lagu laayay ma ahayn soo ayadii helicopterta xabadda lala dhacay ma ahayn soo ayadii shacabka la qaxiyay ma ahayn. midda labaad Jubbaland laanta laga sheekeynay ee uu leeyahay canshuurtii laga qaadayo meelay aadaysa la garanayn leeyahay 14 sano Axmed Madoobe joogay canshuurta waa la qaadayay maxaa lagu qabtay. tusaale hadda soo qaadanay magaalada Beled Xaawo maxaa laga qabtay isbitaal male wada male waxa weeye xarun dawladeed oo quruxsan oo la dhisay male doorow oo furdad oo waxa weeye dekad qalalana oo Itoobiya xuduud la oo waxaad aragtay malaayiin ka adeeganayso baashi la dhahayay hay'adihii oo dhan ay degan yihiin xariiqa xuduud la cashuurana ay joogaan canshuurtii laga qaadayay awal. nimanka wakiilada ee gobolka Gado ka soo jeeda ee mareexaan baa intay bac ku qaadaan bay Axmed Madoobe oo u geeyeen Kismaayo 750 kilomitir u jirta bac baa lagu qaadayay bac diyaaraddu u soo diruuraya soo raacay maada markay ururtaba arbaa madaxtooyadiisa loo geeyay bal musiibada dadka ku absatay argumaanta la soo taagay oo leeyahay horumar baa la haystay shacabkii baa la qaxiyay kan baa la sameeyay dawladda Jubbaland ee amnigeeda loo diiday yahay dadka inay amni haystaan war way ka raysteen dadkii. Axmed Madoobe inta 14 sano maamulahayay 14 sano hurdama aysan ladin shacabka gobolka Gado degan waa maruu isagu xabad ku rido iyo maray kooxii argagixisada isku qabsadaan bay ahayn. maanta laakiin inta yar ee labada bilood bil aan dhamay bil maxaan malay bil kama badno ee Beled Xaawo ay ka maqan yihiin amni iyo xasilooni bay dadka heleen kalsooni bay heleen ay ku shaqaysan karaan ku hadli karaan waxay rabaan ku sheegi karaan bay heleen xornimo u bixeen shacab la haysto oo cadaad waxa weeye cubbursan bay hayeen shacab oo hadli karin oo labadii isla fadhido la dhahay wax kale aaminsantiin iyo waxa weeye Axmed Madoobe aad ka soo horjeedaan iyo sayidka diidantiin bahay. laakiin maanta maxay haystaan maanta waa dadkaas aad aragtaan ee quruxdaad aragtay u ganacsanaya ee amnigaad aragtay haysta weeye waa laga raystay marka waxa leeyahay haddaad waxayseen wixii aad hayseen la tago Kismaayo laada ninkiina soo diray Kismaayo u laada Kismaayo ku ilaaliya Kismaayo. intaasan horta nimankii hore kale nimankan kaleeto ee isagana wiilkan yar ee dhalinyarada nacnacnacnaclehe hadlaya eele
أمني قال له دي هي جبلان هيستا له دي جبلان تلاقى شكل حاجة جوكتا halkee Jubbaland oo amniya war Jubbaland xagee ka talisaa waxaan garan waay dadka waaweyn ee intay soo farfariistaan oo soo istaagaan wax aan jirin ka hadlay dadka ma jibay u sheekeynayaan mise insi bay u sheekeynayaan yay rabaan codkoodu inuu gaaro soo dad dhagale oo indhale oo aqli leh oo wax maqlaya oo deegaankii dalkii yaqaan inuu warkoodu gaarayo soo ma aaminsanaan Jubbaland laga sheekeynay leeyahay waa amni halkee ku taala halkee Jubbaland oo amniya halkee Jubbaland ka talisaa halkee maamulka Axmed Madoobe uu leeyahay madaxweynaheena ka dambeeyay uu wiilka yarka leeyahay kulli waa dhehla la yiri oo waxa weeye xogaa shaqadiisa ka gashay la yaabina mahay oo shaqadiisa ka gashay xagee Jubbaland Axmed Madoobe xagee ka taliya war ma waxaan magaalada Kismaayo iyo Afmadow oo ayada naftirkooda aan la isku socon karin oo dhaxdooda ay xidhanto kooxo argagixisada ay canshuura ka qaataan ما وحنا هين بو أحمد مدوبة هيستاي لا هي بين مداري مركا حقيقة كلام حقيقة أحمد كتر يا أمني هل كل اللي تيجي أمني مركو أمني قال واه يستاهل كوي مركا هذا الأيام ما كوي ندان صوما هين مقالة كيس مايو وأمني اللي قصوا دولي حتى يدان حتى أغلب وحبو قبل وحبا الله فيرين الله وردتك وحوي محشوضة ياشا مش سكوتك وحان له ورمتك حشوضة أمتك حشوضة إذنكو أود من هدينا وتبر من هدينا لكن أفكي نينا كاتان بيهين وحكلو تين مالي أفكي نينا كاتان بيهين نينكا لا حساب طبي دونو شرعي اللي هرقين دونو ومضى على بعضها بضي إذن كان نفتي إن حبس جينا قليي وأحمد مدوبي لكن إذنكو وحيهي إنا نتكا عمستان أو شيء هاتان أو إنا كهد لما أو عيبتم تاغن أتكرلو مطان تذكر يجب الله اللي بعضها اللي عيبتم لبضي أتكرلو مطان بيهين لكن إنا تنسوه استاكتان إذنكو قوري حرالا سراقة إلهي بابعية وحال عن الله الله قرين إن أنت لسه يستكتان Jubbaland نوضع هذا عيب وي يغانا تاسان لهاي مقالة اللوق شلي دقال باكا دعاي وحاونا دقال كاسو udhexeeyay laba beelood oo walaala carabkan ku adkaynaya kan leexin maaye labada beelood ee macallin weyne iyo reer xasan oo reexan weyn iyo mareexan ka soo kala jeeda ayaa halkaas ku dagaalamaya dagaaladu halkaas horeyna way uga dhaceen muddada sanadkana way soo noqdeenba labadaasi beelood oo magaaladana wada degan loo haba lagu kala badnaadee ayaa halkaasi ku dagaalamaya khasaara jirta dhimasho iyo dhaawac walow tira rasmi ah la shaacinin balse waa yaan daro waxaan rabaa inaan baaqo diro labadaasi beelood ee walalaha ee aan kala tagaynin xabadooduna ay kala qaboobi laadahay ee isku soo noqonaya labadii ilaahay isbaday meel ay ku kala tagaysan ma jiro mareexana guuri mahayo reexaweyna halka ka guuri mayso waligood bay wada deganaayeen أبد بي ودا دقنايين وين ودا دقنان دوران وحبا ويلاش هايسكا دمينين حبدا جوجيان لين هاي اسمدا دقنكا دقال كاس هالكا كسعودا هالاقا قيب قاتا سيدي لو جوجين لها ونبادا هالاقا شقيو دولة فدرالكو أود بدن مالي وأينو كلا دح استاكتو وانوكسون هاي دقالا كفران كوحي أرقاقا حسنا دقالا لقولا جرا عيدان كينا إيو أود دينونا دي وحاوي ماشي لغري دادكو ميل والبلغو قارسين لها لما قارن لكن إن شاء الله هو قارن دونا مامل لما هيستان أو مامل قبلات ما هيستانو وحن رجينا مامل عصوبة Jubbaland إلا بسان رجينا كاوح كسوكي مجرو مامل كي أينو لساني إن كسمايو فن وقردقني وادوكسون تهين هالكا وكتن بيي يسيدو وياي وحان هين دقال ودولة فدرال لقلو ميقانو وحان هين إلا الله يو شعب كميقانو وحان هين وحلقا فايدي هذا يرادي مجرو waxaan laga faa'iiday hawa yaraade ma jiro ciidan kama faa'iideysid amniga ka dhigan oo ku kala dhax galaan kama faa'iideysid dhaqaale kama faa'iideysid waxba kama faa'iideysid marka waxa weeye Kismaayuna dhaafilayo oo wasaqi baaba Kismaayo ku go'doonsan haday sidan ku sii socotana Kismaayo laga qabsan doonaa haday sidan ku sii socoto Kismaayo naftirkeeda laga qabsan doonaa marka waxa weeye maadaama musiibada ay ugu habsatay waa musiibo run ahaantii aad iyo aad u baahsan weeye إلهي بقى نقدر القاضي وحاليا تذكر ديجان وتسكت شلون حبدا هلا جوجيو ولاش يعني ما يديك كذا هلا كلا بداديو هلا كلا بداديو جب الله واحد إلى هذا معمول هو ما أنت جوجاي بتشرو ما قاعد يبغى يناصو هاي ما قاعد أنا مال بوك سو بين نقطة تا أما وترترمي وصيداس أحد مدوبه وسي ترترمي أو ماشي واحد نقاني نول بيه تولدي سئين وحداي نقاني أما معمول بالابسي أو مدة يسكو كيني ودب على يسكو صورورني لكن ما أنت Jubbaland وحلا إلى هذا مجرو واحد كنت شتان مجرو
maamul goboleed ma jiro oo maanta Jubbaland la dhaho ma jiro waxaan cuburin aga jugleyn dil aftuub aan ahayn oo laga Axmed Madoobe laga faa'iideeyna maba jiro laga faa'iideey 14 sano waxa ka faa'iideeno intaan ahayn ma jiro waxa isku diraya ee dadka laynaya ee qabiilada waxa weeye isku dirayana waa isaga marka waxba laga rajayn maayo waxayna leeyahay idinku intaas ku tashataan nabadiina ka shaqeeya